Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti habboon daawadayaasheena idilkiina meel walba aad joogtaan iyo si kastaba aad noola socotaan. Halkani waa janaalkeena Hoggaan Media oo alaaba aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay dunida, dhacdooyinka caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda. Waa Jimce taariikhduna ay ku beegan tahay 17 Abriil 2026. Qodobada tabinteena aan ku soo qaadan doono isla markaana aad ku daawan doonteen waxaa ka mid noqonaya haddii Rabbi uu qadaro. Iiraan oo ku dhawaaqday dib u furitaanka marinka Hormuz xilli xabad joojinta la galay. Qodobkaas oo la socdo faahfaahino iyo macluumaad dheeraad ah ayaan idin haynaa. Geesta kale isla Iiraan oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay ka hortagto hanjabaad kasta. Sidoo kale waxaad ku daawan doontaan intaan ku guda jirno tabinteena Shiinaha oo asagana kordhiyay dadaalada diblomaasiyadeed ee Iiraan isagoo isla mar ahaantana doonaya shir nabdoon uu la yeesho Trump. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku lafaguri doonaa intaan ku guda jirno tabinteena. Balse intaan u gudagelin marka hore muuqaalka like noo saar haddii aad nagu cusub tahayna fadlan nagu soo biir oo channelka subscribe noo dheh, gambalaalkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga. Magacaygu waa Hashim Adam. Kusoo dhawaada mar kale iyo tabinteena. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Haddii aan ku bilowno Iiraan oo ku dhawaaqday dib u furitaanka marinka Hormuz xilli xabad joojin la galay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Abbas Araghchi ayaa ku dhawaaqay in marinka istiraatiijiga ah Strait of Hormuz uu sii ahaan doono mid si buuxda u furan yahay ama ugu furan yahay maraakiibta ganacsiga inta ka dhiman muddada xabad joojinta. Araghchi ayaa yiri si waafaqsan xabad joojinta ka jirta Lubnaan, marinka ay maraakiibta ganacsigu u adeegsadaan Hormuz waxaa si buuxda loogu dhawaaqay in uu furan yahay inta ka harsan muddada xabad joojinta iyadoo loo marayo jidka isku dubridan ee horey ay u shaaciyeen hay-adaha dekedda iyo gaadiidka badda ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan, ayuu ku qoray bartiisa X. 28 Febraayo kadib dilkii hogaamiyihii geeriyooday ee kacaanka Islaamiga ah Ayatollah Ali Khamenei iyo dhowr taliye oo militari ah, Mareykanka iyo Israa'iil waxay bilaabeen olole militari oo ballaaran oo ka dhan ah Iiraan. Jawaab ahaan, ciidamada qalabka sida ee Iiraan ayaa fuliyay weeraro isdaba joog ah muddo ku dhow 40 maalmood, kuwaas oo lagu bartilmaamsaday saldhigyo militari oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ku leeyihiin gobolka, iyagoo sidoo kale muujiyay awoodooda dagaal. Si ka duwan rajadii ay ahayd in dagaalka si degdeg ah ugu dhammaan doono guul fudud, weerarada jawaabta ah ee Iiraan waxay khasaare muuqda gaarsiiyeen hantida iyo saldhigyada Mareykanka iyo Israa'iil, taas oo keentay baa la yiri in khilaafku uu sii dheeraado isla markaana xiisadda gobolka ay sii kacsato. Si loo dejiyo colaadda, Pakistan ayaa 8 Abriil dhexdhexaadisay xabad joojin 2 toddobaad ah, taas oo u ogolaatay in wada hadallo lagu qabto magaalada Islamabad. Intii ay socdeen wada xaajoodyadan, Iiraan waxay soo bandhigtay qorshe ka kooban 10 qodob oo ay ku jireen in ciidamada Mareykanku ka baxaan gobolka iyo in cunaqabataynta laga qaado Iiraan iyo in Iiraan ay maamul buuxda ku yeelato marinka muhiimka ah ee Hormuz. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo wafdiga Iiraan ay 22 saacadood oo wada hadal ah oo adag ay la yeesheen wada xaajoodiyaasha Mareykanka ee Pakistan, haddana wafdigaas wuxuu dib ugu laabtay Tehran iyadoo aan wax heshiis ah la gaarin. Sababta ay sheegeen waxay ahayd kalsooni darro iyo waxa ay ku tilmaameen isbedel joogto ah oo siyaasadeed ee flip-flopka afka khalad lagu yiraahdo oo dhinaca Mareykanka ka imaanayay. Dhanka kale, Iiraan oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay ka hortagto hanjabaad kasta. Taliyaha guud ee ciidamada Iiraan, Generaal Sare Amir Hatami, ayaa carabka ku adkeeyay in dalkiisu si buuxda ugu diyaarsan yahay militari ahaan in uu wajaho hanjabaad kasta iyo gardarro kasta oo dibadda kaga timaada, isagoo sheegay in ciidamada qalabka sida ay weli ku sugan yihiin feejignaan joogto ah isla markaana diyaar ay u yihiin in ay bixiyaan jawaab degdeg ah oo go'aan leh. Taliyaha ciidanka ayaa fariintan soo saaray munaasabadda maalinta ciidanka Iiraan oo ku beegan 29 bishan Barbardin, taas oo loo asteeyay xuska ciidamada dalka, isagoo ku nuxnuxsaday diyaar garowga ciidanka iyo doorka difaaca qaranka. Hatami wuxuu sheegay in ciidanka Iiraan iyaga oo raacaya amarada hogaamiyaha kacaanka Islaamiga Ayatollah Mustafa Khamenei isla markaana ku tiirsan awoodooda gudaha
aqoon casri ah iyo ruux adag oo wadaniyadeed ay isku arkaan gaashaan naf hur ah oo u taagan ilaalinta amniga iyo xasiloonida shacabka Iiraan iyagoo mar walba ku jira feejignaan iyo diyaargarow dagaal. General Hatami ayaa sidoo kale adkeeyay in ciidanku ay ku sugan yihiin go'aan adag, indho feejigan, niyad bir ah iyo iyagoo faraha ku haya kiciyaha rasaasta, taas oo uu ku sheegay in ay muujinayso sida diyaar ay u yihiin in ay la tacaalaan hanjabaad kasta ama weerar kasta oo kaga yimaada cadowga. Wuxuu intaasi ku daray in ciidanka ay ka go'an tahay in ballanqaadkoodii ay ilaaliyaan ilaa iyo neefta ugu dambaysa. Ugu dambeyn, Hatami wuxuu sheegay in Iiraan ay xaqiijisay in ciidanka dalka ay sii wadi doonaan sidii horeyba ay u sameeyeen socodkooda adag ee ku wajahan hirgelinta himilooyinka sare ee kacaanka Islaamiga ah, isla markaana ay u adeegayaan shacabkooda. Wuxuuna sheegay in ciidanka sharaf iyo adkaysi ku taagnaan doonaan ilaa iyo laga gaaro guusha ugu dambaysa. Geesta kale, Shiinaha oo dadaal xoogan ku bixinaya in la soo afjaro dagaalka Iiraan xilli uu isu diyaarinayo shir uu la yeesho Trump. Dowladda China ayaa dardargelisay dadaaladeeda diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka la xiriira Iiraan, iyadoo si taxaddar leh ugu socota jid adag oo diblomaasiyadeed. Talaabadan ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu isu diyaarinayo shir la filayo in uu bisha soo socota la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoo isku dayaya in uusan ka careysin Tehran isla mar ahaantaana uu ilaashado xiriirka uu la leeyahay Washington. Falanqeeyaal ayaa sheegay in kulanka la qorsheeyay ee bartamaha bisha May dhexmari doono Xi iyo Trump si weyn u saameyn doono sida Beijing ay u wajahdo khilaafka Bariga Dhexe. Arrintan ayaa sidoo kale muhiim u ah Shiinaha maadaama uu yahay dalka ugu weyn ee soo dhoofsada shidaalka ceyrinka ah ee Iiraan, isla markaana ku tiirsan Bariga Dhexe ku dhawaad kala bar shidaalka uu isticmaalo. Sidaa darteed, Beijing waxay isu diyaarinaysaa in ay ilaaliso sahideeda tamarta. Qaabka dhexdhexaadka ah ee Shiinuhu u wajahay dagaalkan ayaa suurtageliyay in uu sii haysto saameyn qarsoon oo diblomaasiyadeed. Xitaa Trump ayaa sheegay in Beijing ay gacan ka geysatay in Iiraan ay ka soo qayb gasho wadahadaladii nabadda ee toddobaadkii hore ee lagu qabtay Pakistan. Dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo xoogan oo ka socda Bariga Dhexe. Eric Olander oo ah tififtiraha guud ee hay'adda China Global South Project ayaa sheegay, waxaa marar badan maqasheen in madaxweyne Donald Trump oo sheegay in Shiinuhu la hadlay Iiraan waxay ka dhigan tahay buu yiri in ay joogaan qolka wadaxaajoodka xitaa haddii aysan si rasmi ah uga mid ahayn miiska wadahadalka. Sida ay sheegayaan ilo xog ogaal ah oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters, Shiinuhu wuxuu u arkaa Trump in uu yahay siyaasi jecel heshiisyada iyo ammaanta. Sidaa darteed, Beijing waxay doonaysaa in ay kulankaasi ku hormariso danaha muhiimka ah sida ganacsiga iyo arrimaha Taiwan. Aragtida ugu badan ee ka jirta Beijing ayaa ah in Trump si diiran loogu soo dhaweeyo oo loo fidiyo soo dhaweyn heer sare ah oo roog cas loo fidiyo si loo ilaaliyo xasiloonida iyo istiraatiijiyadda ee labada dal. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in Beijing ay mar walba ka shaqeyso nabadda iyo horumarka gobolka, isla markaana ay sii wadi doonto dadaal aan kala go' lahayn si nabad loogu soo celiyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Trump ayaa sheegay in booqashadiisa Shiinaha oo noqon doonto tii ugu horeysay madaxweyne Mareykan ah ku tago dalkaasi muddo 8 sano ah ay dhici doonto 14 ilaa 15 May. Xiisadda iyo dadaalada nabadda iyadoo xanibaadda badeed ee Mareykanka uu ku soo rogtay dekedaha Iiraan ay noqotay khatar sii kordhaysa. Shiinuhu wuxuu kordhiyay dhaqdhaqaaqiisa diblomaasiyadeed. Si kastaba ahaatee, Beijing si weyn uma cambaareen qaabka Trump u maareeyay dagaalka si aysan u carqaladeyn shirkii la qorsheeyay oo horey mar loo dhigay sabab la xiriira dagaalka awgi. Xi Jinping ayaa ugu dambeyn ka hadlay xiisadda Talaadadii isagoo soo bandhigay qorshe nabadeed oo 4 qodob ka kooban. 1. Ilaalinta wada noolaanshaha nabadeed. 2. Ixtiraamka madaxbannaanida dalalka. 3. Iyo ku dhaqanka sharciga caalamiga ah. 4. Iyo isdheelitirida horumarka iyo amniga. Kadib markii Trump ugu digay Iiraan in dalka oo dhan hal habeen lagu burburin karo, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Mao Ning kama aysan bixin cambaareen toos ah, waxayna kaliya sheegtay in Shiinuhu si qoto dheer ugu walacsan yahay xaaladda, isla markaana ay ugu baaqday dhammaan dhinacyada in ay door wax dhisaya ka qaataan dejinta xaaladda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa ku dhawaad 30 wicitaan iyo kulan la yeeshay wasiiro iyo madax kale si loo helo xabad joojin, sida ay sheegtay Reuters.
haddii aad halkan nala soo gaartay dhab ahaantii waan kaaga mahadcelinaynaa la socoshada iyo daawashada muuqaalkeena. Fadlan la wadaag asxaabtaada fikirkaagana qaybta hoose ee faallooyinka noogu reeb. tan iyo intaan tabinteena xigta ku kulmi doonno waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaan Allah.